nadaa oo naga xishood guryaheega ha naga qaxin nadaa oo naga xishood caruurta ha naga dilin nadaa oo naga xishood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay waxaan halkan noogu soo gabagaboobay shir consultative meeting training aqoon cilmi badan wax badan baan isugu soo celcelinay because hawsha laga maray iyo shaqada socotaa saasa 2 maalmood noo socday 8 bisha ilaa 9 bisha June 2021 waxaa ka soo qayb galay gabdho Soomaaliyeed oo ka kala socda 5 maamul gobol iyo gobolka Banaadir iyo gabdhaha kale ururada bulshada ganacsatada aqoon-yahanada oo maxayto dhinacyada kala gedisan oo mujtamaca u shaqeeya runtii waxaan qaadanay waxbarasho aad iyo aad u wanaagsan waxaa macallin noo ahayd facilitator Shukriya Diini Doctoressa Shukriya Diini waan ku faraxsanahay in qofka waxana barayo uu yahay qof Soomaaliya waan ku faraxsanahay qofka waxna barayo gabar Soomaaliyeed oo ku faraxsanahay wiilasha ma diidani laakiin aqoonteedu waa rabnaa inay gaarto gabdhaha Soomaaliyeed inay maxayto yararkaahu inay gaaraan meel fiican oo ay dadkoodu u soo laabtaan Shukriyo iyadoo yar baan bartay anigu oo dugsiga secondary-ga markaas dhigata waxbay baratay Canada degtay waa soo laabatay waxay u soo laabatay dalka iyo dadka inay wax u qabato Shukriya waa mahadsantahay hooyo waa mahadsantahay waan rajaynayaa gabdhaha kale dhalinyarada inay kugu daydaan waxaan baranaynay leadership-ka iyo sidii haweenku ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda horta leadership marka la yiraahdo waxay ila tahay in annagana la ka bartaan rabaa hooyo walba guri bay xukuntaa leadership-ku gurigu ka bilowdaa subax waagu markuu bari hadda inta magaalada deganeedna waa soo ballantay gabdhihii ka yimid goboladuna mid walba telefoon bay ku hagtay cidii oo ku shaqeynaysa waan ogahay mid walba telefoon bay saar la yeelay saar la qabto ma moodo inay haday maqan tahay ay wax qabsoomi karaano ayadaa dhigta sida hawsha u socoto taasaan marka waxaan ka sii badinaynaa sida casriyeysan oo adduunkuna tools u isticmaalu leeyahay annaguna midaan isticmaalnaa inaan isku darno oo isku saa'idsano leader-nimada iyo maxay hoggaanka wax la hogaaminayaana horta marka hore qofku waa inuu u dhashaa aqliga iyo capacity-gaas uu leeyahay kadibna uu aqoonta ku darsadaa marka gabdhaha iyaga Soomaaliyeed 30 sano oo practical waa qaadanay markii horena qof walba tabartiisu haystay laakiin waayuu waxay ku bareen mahmaayo Carabiga waxay tahay qofkan waalidkiis rabeen waayaha rabeeyo qofkan waalidkiis rabeen oo runta u sheeg waayaha runta ku sheegayo marka waalidku uu inta ku siiyo wax walba ku diyaariyo cun cab sooxo tantii adigu markaad iska hortimaadaan waayaha ku barahaya marka 30 sano leadership-ka gabdhaha Soomaaliyeed hogaamintii ay guryihii ay u noqdeen maxayto ayagu ay hor yimaadeen waa jeclaan lahaa marka meel kasta oo danaha looga tashanayo runtii waxyaalaha la yaabaa waxay tahay siyaasadda Soomaaliyeed oo hadda Soomaalida cusub siyaasadda ay ku dhaqmaysaa oo ku socoto waan anigu aaminsanahay inaan anagu rukunka wax uga taagnay dadkaygii Soomaali gabdhihii Soomaaliyeed oo aniga age-kayga ahaa iyo kuwii iga weynaayo markii dawladdu ay nagu korduntay waxaan aaminsanahay inaan u istaagnay in aan Soomaalida cusub diyaarino dadku qabiil baa la kala aaday dhibaatadii baa qof walba meel geysay uusan asagu raalli ka in uu soo dooran baa duruuftu geysay intayadii hartay intii maqnayd gabdhaha waan isla shaqaynaynay waxaan diyaarinay Soomaali cusub oo ugu talagalnay in looga baxo maxay dhibkii aan anagu isku geysanay mararka aan fiiriyo gadaal maskaxdeeda aan reflection u qaato waxa ku soo dhacda magaalo nuurayso oo habeenkii markaan seexano oo magaalada laga seexdo oo waagi adduunka dawladda aan haysanaa ka sheekeynaya subaxii aroortii baa shaqo la aadi jiray iyadoo xalay dhulkii la xaaqay oo geedihii la waraabiyay oo geedihii biyihii lagu waraabiyay ay ka qoyan yihiin ubixii noo magaciisa baa shaqada geli jirnay
nal baa noo daarnaa biyaa noo socday adduunkaan la soconnay annagaa iska burburino qof inta noo yimi nagama burburin waxaan ku soo harnay mugdi iyo colaad iyo cabsi waxaan garanayaa xamar waagii dambe ayaan dhaxlaysma aroosi jiroon duurka la kala galay markii aroosku bilowday 7 saac oo duurka wala inta la orod lagu keen jiray because qofna gurigiisa 10 saac kama maqnaan karin sharci waxa jiray nahayay oo hadaa 10 saac guriga joogi weydo waad arkaysaa qofka la waayay 12 saac irida la taawar telefoon male isgaarsiin male hadii la waayay 12 saac waa u dhamaad dad baa wali ku maqan oo suu u tagay niman badan waxaan ogay odagii halkaan u galay meel galay gadaal aan soo laaban oo la arkin marxaladaas ay ka soo gudubtay gabdhihii marka nasiibka Ilaahay ku siiyay inay joogan oo ka soo gudbiyay wuxuu ka soo gudbiyay waxay ahayd aqoon iyo leadership iyo kada waxa haday adiga daacad aad ka tahay oo rabto inaad ka baxdo waad ka baxaysaa waqti kasta ku qaatay dib waad ka baxaysaa alxamdulillaah rabbil caalamiin Soomaalidan cusubaan hadda nimid Soomaalidan cusub marka waxaad moodaa gabdhihii shaqada soo qabtay si ama garanay goorna ka bixiyay si system ah looga saaray leadership-ki waan ka saaray taasa marka waxay keentay in raggii jid iyo jaha ay wax wadaan waayeen oo ay baabuurkii yiriig markuu u leeyahay marka waxa idin ka maqan inay gabdhuhu idin la joogaan oo baabuurka aan idin la wadno oo gabdhuhu ay farad aqlaan leenahay aqoon baan leenahay way aragnimaan leenahay aniga anoo hurdadaad kiciso tira ka waran xamar sodonka garrib waa ku aqrinaya qof dadka qofkii imaad waxa joog aan ku sheekeeye ana raba inaan sheekeeyo maxay yeelay waa buuxa inta inaan la aado aakhiro ma rabo iimana sahlan inaan buu qoro dadka marka xoogaaba qof u dhiibaa wixii la soo maray qof walba idinka una waa buuxa wax noo yimaad meeshaan inta isu nimaadno aan gaari lahayn maanta inaan wixii la idinka aruuriyaa buugaag aad iyo aad u qiimo badan soo saari lahayn maxay yeelay qof kasto annaga naga mida culays baa ku habsaday Ilaahay uu ka badbaadiyay marka waxaan dhihi lahaa Soomaalida cusub waa inaysan ka maarmin in gabdhuhu talada ay wax ka yeeshaan waa leadership-ki markaan ka hadlahayo ma joogno maanta qolka inta ku jirtaan banaanka aan taaganahay baryana la taagano ilaahu maxaa la yiri ma la heshiyo mashxaradeena maya taas annaga waa ka soo kormarnay maxaa yeelay shaqan soo qabanay tii in la burburiyana ma rabno waa inaan adiga hayga burburina aduu ha ku ciyaarin adaa gardaran Soomaalidu wali ma gaarin hadda laba gabdhood ay ku jiri lahayn qolka lagu wada hadlayo waa huba inay maxay wax badan ay jilcisaraan lahaayeen rag waxa la dhahaa maahooyin badan baa niman ku leeyihiin oo yaa laga adkaan laakiin anagu maahooyin badan waxaan leenahay la isku naxariisto waxaan rabnaa in wax isku yimaadaan ma dhahayo raggu ma rabo in nabadu timaado laakiin waxaan leeyahay waa isku jeedaan yaan la isku jeedin waxa ka fiican in loo jeedo dalka iyo dadka intii labada qof isku jeedo qof walba wixii alla uu qadaro helayaa marka leadership-ku waa loo dhashaa waana la practice gareeyaa waana lagu dhaqmaayo gabdhuhu 24 saac waxaan ku jirnaa anaga practicaldeedu ma kama dhamaato reerko odagu biilbu inta cid uu qoondayo ka taga kaas jabintiisa iyo xisaab celintiisa anaana la ka raba iyo ilmiga ka soo bixi lahaa taa waxaan kaga hadbaxayaa leadership-ka women political participation haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda raba inaan imaado dalkan wuxuu soo maray gumaysi inuu haystay oo laga xoreeyay gabdhihii Soomaaliyeed hooyooyinkeedu waa u istaageen ayagoon wax qorin wax aqrin bay wuxuu u istaageen in ay dalka ka xoreeyaan gumaystiga ragga garabkooda istaagaan xawataako Allah u naxariisto xaawo Cismaan xawataako waxay ku dhimatay Soomaaliya danteeda iyadoo u taagan halkaas waxa laga galiyay feer wixii hadda waa la soo celiyay laakiin waagii hore meesha calaamadeeda meesha ka taagneed feerba maxaa geed fallaarba inta laga galiyay feerta baa dhinaca kale loo uga baxday halkaas lagu dilay waxay u taagneed in gumaysigu uu ka kaco daro taas way aan ugu magac darnay oo markii bataaladii lala tagay waxaan dalka adaful iimaan annagu aan santarada ugu magac darno maxay u bixino si loo ogaado maxay gabadha Soomaaliyeed oo kooska dalka u dhimatay dahabkooday gadeen waa u istaageen
waxa naadiga gabdhaha gabar baa iga sheekeynaysa naadiga oo SYL ka gabdhuhu joogeen waa la shaqeynayay xornimadii baa la helay gabdhuhu marka anaga xornimo inta la helo shaqo la helo la shaqeystaa waxay noogu tahay wixii la raadinaya cadawga nooga korkaco 30 sano tiihaan galnay gabdhihii waa istaageen marka haweenku siyaasadda inay ka qayb galaan oo dalkan sida loo hagahayo siyaasadda aan ka mid noqono waa wax dalka u fiican dadka u fiican mas'uuliyadda u fiican mustaqbalka waa rag iyo dumar waxaan isleeyahay haddii la istiriyo ama waa jin baa noqonaynaa ama haweenkaa badnaanahaya marka caqliga fiican uma sheegahayo adiga bannaanka istaag waa in aniga baahidayda gudaha keena takhtar haddaan u tago waa inaan u sheega meesha layga hayo laakiin walaalkay ama ninkayga ama wiilkay oo duura adiga bannaanka iska joog anaa takhtarka u soo sheegay meesha laga haye daawadii runtaa la gaari maayo anigu waxaan rabnaa inaan gabdhuhu wada tashiga dalka meesha loo wadana inaan wax ka ogaano gabdhahana siyaasadda ay ka qayb galaan oo ay kuraasta anagu waxaan ka shaqeynay oo intaasoo sano ka soo shaqeynayna gabdhuhu inay helaan kuraas u gaaro ayagu ku tartamaan runtii meel baa la soo gaaray waxna waa dhiman yihiin sababo badan baanan markaan saa uga shaqeynaynay niman baa waxay lahaayeen maxaa waliba gabdhay laga dhaadhiciyay wadaniyiin baa tihiin constitution waxa ku dhigan qof kasta wadaniya waa wadani waa nahay laakiin duruufo kala jira oo gabdhuhu aniga hadii wiilkaas inta la isoo bixlay yiraahdo adiga iyo wiilka ama oday ugu filan feertama waa iga adag yahay wuxuu iga adag yahay waxa waaye siyaabo badan gabadhi marka hadii duq ugu filan la soo bixiyo waa guudadkan isku dhigayna waa isjiidayna waa ismagaciisayna meel baan ku wada dhacaynaa marka gabdhaha sababaha aan u niri kuraastooda loo xiro inta laga gaarayo Soomaali waa ilbax ah oo waqtigu uu kala furfurayo hadda waa isku xiranay qabiil baa la aaday waxa la aaday 4.5 qabiil walba wuxuu leeyahay macnaha gabadha in baa ii sheekay wuxuu anigu waa aragnay madaxweynihii waa aragnay madaxweyne gobol uu soo arkay haye waxaan niruun anaga qabiilkayga naagna ma siin kartid hadda anuna ii sheekanaya naagna ma siin kartid aqalka saran ma siin kartid waa gartay oo sabab midna ma rabno oo adigu qabiilka ma adiga yaa ku wakiishay inaa inta tagto oo madaxweynaha u tagto naagna soo diido aqalka sarana soo diido capacity-gaas maxaa kalsoonida intaas ilaag adigu maxaad ku mutaysatay oo anigu ay igu hadlashay ilaa anigu naagna waa rabaa aqalka hoosena waa rabaa ka dhaxana waa rabaa ima aada weydin codna ma qaadin waxa markuu aaminsan yahay codka qabiilka ninkaan inuu ku hadli karo annagoo dumar nolotana meelna lagu xareynaayo marka waan ognahay waxyaalaha maxay duruufaha waxna waa la abuuraa oo disasterka waxna waa man made waxna waa natural disaster mas'uuliyadda hadda joogta oo maxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha gobolada intaba waxaan ka rabnaa gabdhaha in la difaaco laga difaaco markii doorasho la isu yimid oo doorasho la isugu yimaado waxaan nahay dab iyo dhagax la isku dhiftay kala dhowray doorasho marka dhammaanto saaxiib baan noqonaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan ku gambanno dawladnimadii aan dhisanay oo dhibka ka soo marnay oo maxay aan u xiraysanay dawladnimada Soomaaliyeed inay dawladnimada Soomaaliya ku soo laabato waxaan uga baxnay wax walba aan u deynay in Soomaaliya inta dawladnimo ku soo laabato aan isku soo laabano waan ku faraxsanahay aniga hadda sida ay wax u socdaan iyo inaan isku soo laabano inaan isu wada nimaadno waa ku faraxsanahay laakiin farxadeedu waxay complete noqonaysaa mas'uuliyiinteeda message baan u dirahayaa oo ogahay waliba inay anigu inta badan waan aqaanaa dadka Soomaalida hadda madaxda waa aqaanaa dad ilbaxo
garanaya xuquuqda qofku markuu xuquuqda bini aadamka garanaya ayuu maamuli karaa dadka mar haddaadan xuquuqda bini aadamka garanayn dhib bay kugu tahay waa iska jeexsiinaysaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waa in loo xiraa kuraastooda waa in ay ku tartamaan gabdhaha lacag ma haystaan waxa ka dhacay hadda Somaliland waa u jeednaa oo ayagoon gabdhaha nabcayn gabdhaha waa soo sharaxeen waa yimaadeen waa dagaalameen waa hadleen waa waxeeyeen waxay noqotay qalbi jab bay noqotay dadku codaynayna waa gabdho meesha waxa ka maqan marka waxay tahay waxa shalay nin baa noo furay nala hadlay odaya wuxuu yiri ma soo baxaan mar walba gabdhihii ma isku codaynayaan gabdhihii gabarooda sharaxdaada baarmaanka dib 100 gabdhood aan soo gashano oo gabar is sharaxdo 10 cod heli mayso waxaas waxay ahayd wixii hore nolo ku baacsan jiray hadda waxay gabadhii soo sharaxdaa loo codaynaya gabdhuhu lacag ma haystaan wixii baan qabiil ku dhisan qabiil bay ku dhisan yihiin kursiga baa qabiil la siiyay qabiilkii la siiyay iska ilaalinayo iska celinayo marka wadan baarbaanka haday fadhido adiga maxay dhibaato ku leedahay ma wiil iyo gabar qofkii fadhiya qofku waa inuu deliver gareeyaa meeshan waagi mindhaageel la kala dhici jiray oo la istili jiray aad gabdhaha loo jeclaayay hadda nolosha cusub iyo Soomaalida cusub gabdhaha maxay to aqoontii iyo maxay to cidii wax income-ka u baahan gabdhihii baaba aad iyo aad waxaan isleeyahay dadaalayo gabadhu mushaarka ay qaadato qoyskay toos ugu soo laabanaysa marka waxaan rabaa in gabdhaha Soomaaliyeed ayaguna ay gargaaraan inaad is gargaartaan adinka gabdhihiina noo ku yimid gobolada Ilaahay nabad guriyaha idinku geeyo laakiin mishinka waxa aad naga qaadaysaan han noqdeen gabdhuhuna is gargaaraan rag iyo dumar waa u wada dhalan laakiin hadda doorashada dab iyo dhagax baan nahay waa inaan gabar u heelina aniga mar hore aan sheegay mar hore walaalkay ila dhashay iyo gabar aanan aqoon laakiin aqoon loo isleeyahay waxa meel ka bixinaysa codkayga haday u baahdaan gabadha iskale inda qabsi gabadha iskale sababtan saas u leeyahana ana xanuun maray waa arkay sida wax loo wado gabadha qof walba wuxuu la noqday lacagti baa lagu dilay powerki baa lagu dilay waxa lagu dilay influence baa lagu dilay shirki gudaha lagu dilay kama warqabtaan anagu fiidka horaan iska seexanaa gabdhaha gabar baa inta ilmaha waxsiisa caawar mar 9 saac waan soo jeed maxaa sameeynaysa gabadhu soo aasahay waxa 9 saac u soo jeedaan oo loo waxaynayaa dumarkan masaakiinta oo fiidka hore dhacay marka waxaan rabaa qof fiidka hore dhacay anu kursiga ku tartano oo wareegayno waxayna online nin hebel ay soo baxo anagu ma is dhahayno oo culture-ka usaas maaha marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu ha iskaalmeeyeen anagu waxaan ku filannahay mar hadaan maxay garabka isqabsano waa jiiri karnaa hadda gabdhahan kootada la keenay waxaan ka soo bilownay waagi carrada aan dawladda imaan oo nimanka odayaasha carrada ay ka tirnayeen oo ahaa hogaamiyaasha marka waxaan rabaa inaan waqtiga duhurka nagu soo dhow na dhaafo aba la dhaafo salaadii kaliya waxaan rabaa maanta take away baa laga qaataa shir kastoo la yimaadee shirkan take away gabdhaha ay ka sheegaan muxuu dalkan annaga iska leh dadkiisuna waa annaga inuu dego waxaan ahayn danteena ma kaafisee nadaayo ninkii diidow naga xishood nadaa oo naga xishood nadaa oo marka waxa wuxuu xambaarsan yahay message-kaanu message aad u culus nadaa oo naga xishood guriyayga ha naga qaxin nadaa oo naga xishood caruurta ha naga dilin nadaa oo naga xishood asayha noo saarin nadaa oo naga xishood nalka ha naga demin nadaa oo naga xishood iskoolka ilmaha noo aadeen nadaa oo naga xishood umush isbitaalka noogu dhashay ha naga xirin dhakhtarka ha naga ceyrin taqaatiir ajnabi ah dalkaada ka shaqeysa waxaan haysanaa qalabkii ugu dambeeyay mar gabdhihii waxay dhaheen hana la daayo oo hana ka xishoodo ilmaha iyo reerka aan maxay nabad ku noolaadeen wabillahi tawfiiq